كاشدين وين هو يوهي القرنكة يحفيز كبرايم مستركة إسكا كاشدين أيام كوريجينينا ولي كن يتضرب قليل إن كبدن 6,700 oo garaam oo ah raashinka qalalan noocyadiisa kala duwan ayaa maanta lagu wareejiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Ibrahim Sheekh Muxudiin oo loogu talagalay ciidamada ku jira jiidda hore ee difaaca dalka xarunta ololaha u hiil hooyo qarankaaga ayaa lagu diyaariyay waxaan iska kaashaday haweenka gobolka Banaadir gabdhaha xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda iyo sidoo kale haweenka xafiiska ra'iisul wasaaraha xildhibaan Caasha Koos oo ku hadlaysay codka gabdhaha baarlamaanka iyo sidoo kale guud ahaan haweenka Soomaaliyeed ayaa ku wareejisay taliyaha ciidanka xoogga dalka iyagoo ka jawaabaya baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa in la garab istaago ciidamada u taagan har iyo habeen difaaca dalka waxaan ku wareejinaynaa saadkii aan ku sameynay 12 cisho oo ka bilaabantay sabtidii hore ilaa iyo shalay oo Arbaca maanta oo Khamiisna shaqadii baan ku wada jirnaa waxaan ku wareejinaynaa 6,700 ayaanu ku wareejinaynaa oo loo geynayo ciidanka gabdhaha Soomaaliyeed ee hooyo hiili qaranka xafiiska Prime Ministerka iyo gobolka Banaadir iyo xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed oo anigu aan wakiil ka ahay ayaa iska kaashaday annagoo u joogna magaca hooyo u hiili qaranka hooyadu ayadaa dhashay nin kasta waa hooyo ka wax dilaya ayadaa dhashay ka wax badbaadinaya ayadaa dhashay ka dhimanayana ayadaa dhashay waxaan garab taaganahay ciidamadayada dhaxanta iyo kulaylka u adkaystay ee aanu ku xashaashayno idinkoo miidiyaana aad nabadgelyo wax ku duubaysiin kuwaasaan garab taaganahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Ibrahim Sheekh Muxudiin ayaa uga mahadceliyay haweenka Soomaaliyeed ee mar walba u taagan garab istaaga ciidamada qaranka sidoo kale waxa uu baaq u diray ganacsatada Soomaaliyeed shaqaalaha dawladda iyo guud ahaan shacabka inay doorkooda ka qaataan garab istaaga ciidamada naftooda u horaya qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan aad runtii aan uga faraxsanahay dadaalkan faraha badan ee ay goor walba nala garab taagan yihiin gabdhaheenu khaasatan ciidanka qalabka sida ama ciidanka xoogga dalka ee ku jira furmaha dagaalka kaalmada joogtada ee ay siiyaan ama ay goor walba mataqaan ugu deeqaan ayaan leenahay marka ugu horeysa aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daryeelka iyo daba istaaga ciidankiina ku jira furmaha hore khawaarijta kula jira dagaalka kaalmada aad u samaysaan waa mid aad runtii aad ku mahadsantihiin dalkiina iyo dadkiinana aad ugu hiiliseen ciidankiina qalabka sidana sidoo kale aad mataqaana ku garab istaagteen waxaan leenahay dadaalka aad wadiin waa mid adduunyana aad ka heli doontaan abaal aakhirana aad ka heli doontaan ajir idinma dirsan annagu idinma adeejin idinma dhihin noo sameeya idinkuma garab istaagin garashadiinna iyo kartidiinna iyo karaankiinna ayaad qaadateen ood xoolihiinna iyo isku darsateen wixii aad mataqaanaa aad lahaydeen iyo xooggiinna aad isku darsateen waxa weeye qof walba waxuu ka karo oo karaankiisa ah oo golaha wasiirada dheh xildhibaanada dheh shaqaalaha dawladda dhammaan ganacsatada waxaan leenahay in garab lagu siiyo gabdhuhu shaqada ay ku jiraan waa shaqo runtii aad muhiim noogu ah waa shaqo aan dhigi karno howlgallada maanta socda waxaan loogama maarmo ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo culus ka wada deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka waxaana ay kala wareegeen deegaano iyo degmooyin 15 sano ka badan khawaarijta al-shabaab ay maamulayeen kuwaasoo hadda harsanaya harka dowladnimada iyo caawda nabadda cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho